دكتورkii caafimaadka ka soo bartay dalka dibaddiisa waxa ay kooxdu ka dhigeen dilaa iyo abaabulo qaraxyo ah oo lagu dhibaateeyo shacbiga Soomaaliyeed. Nervous system iyo peripheral nervous system alda. Central nervous system waxa la isku dhahaa waa peripheral central nervous system oo loo soo gaabiyo CNS iyo thalamus nervous system oo loo soo gaabiyo ANS waa intaan. Peripheral nervous system waxa la isku dhahaa wixii madaxa ka dambeeyo. waxaan idiin soo gudbinayaa xogta iyo weliba sir aad khatar u ah oo ku aadan sheekada Dr. Fanax oo ka tirsanaa amniyaadka al-shabaab laguna xukumay maanta dil toogasho ah muuqaallo iyo codad Dr. Fanax ah ayaan idiin soo gudbinayaa iyo weliba cidda daktarka la shaqaynaysay xilligii uu ka tirsanaa shabaabka dilkii uu geystay aamino fuudeyntii uu fuudeeyey dilkii igraam tahliil iyo arrimo kale haddaba waa arrin aad u yaab badan qof walboo caqli leh oo Soomaali ah macquul lama aha waxa Dr. Fanax uu sameeyey iyo siday u dhacday musalsalka sheekada Dr. Fanax dhammaantiina muuqaalka leegta saara siina shargaraya rabbi subxaanahu wa tacaala dhammaanteen umuuraha leenahay ilaahay ay inoo sahlo waad yaabi doontaan xogta iyo macluumaadka iyo muuqaalada Dr. Fanax oo ka tirsanaa amniyaadka al-shabaab maantana dilka lagu xukumay Fahad Mahad Salaad iyo sidoo kale isjiid dheer kadib darajada ciidanka uu xirtay iyo waxa dhacay iyo weliba halka salka uu ku hayay cidda u dirtay dilalka uu fulinayay ayaa daawan doontaan xaasidka waxaa leenahay wa min sharri xaasidin idaa xasad alxaasid laa yaflax biidni illaahi alkariim waxaa ku dambaynaya hoog iyo khasaaro haddaba muuqaalada aad ayaad ula yaabaysaa al-shabaab amniyaadkooda waa kuwa khatara qaababka dilalka ay u fuliyaan sida qaraxyada u fuliyaan sida u shaqeeyaan haddii macallin ilka case aan aragnay maanta waa Dr. Fanax Dr. Fanax daktar aad loo yaqaan ayuu ahaa dhalinyaro ah laakiin amniyaadka ayuu ka tirsanaa al-shabaab sida asiga uu qoray waa nin aan aad ula yaabin adeegiisa sida u sheekeynayo laakiin muuqaalkan maanta dilka markii lagu xukumayay muuqaal ayaa ka horeeyay uu baahiyay Faarax Shiiq oo saaxiib dawla ah Fahad Yaasiin waxaana muuqaalkaas lagu sheegayay in Dr. Fanax markii Fahad uu baxay farmaajada la doortay in laga sii daayay xabsiga darajooyin ciidanna uu xirtay sargaalna laga dhigay waxaase maxkamadda la soo bandhigay asigiyo sargaalkii uu xiran yahay iyo darajadii nisa iyo calaamadii iskale waxayse sheegayaan hadda maxkamaddii weliyaha daadiinaya uu leeyahay wax la yaab leh wuxuu leeyahay dhankii bal wax muuqaalo kaloo sir ah ayaa idin tusaya laakiin ila daawo waxa soo socda bal waxaan marka hore daawo wuxuu weliyaha leeyahay markii isbeddelka uu dhacay kadib oo farmaajo uu baxay ayaa ifaacday bixin ayaa kiiskan la soo baaray laakiin muuqaalkii hore oo Fahad ay dusiyeen iyo nis ay dusiyeen Faarax uu helay oo baahiyay waa isla Dr. Fanaxi waay oo lagu eedeynayay in Mahad Salaad iyo rag uu la shaqeynayay markii xukunka ay qabsadeen xabsiga ay ka sii daayeen laakiin maanta dilaa lagu xukumay su'aasha si weydiinaya waxay tahay marka Fanax ma la dili doonaa ama wajiga in laga xiro ayaa qof kale lagu bedeli doonaa oo jeer ah ama reexamar ama qofka qabiilada yar ama qabiilada waaweyn baa naqla duurabo ayaa lagu bedeli doonaa in wajiga loo xiro qof kale ayaa loo dusin doonaa maadaama mar horeba la sheegay in ninkan sargaal laga dhigay haddaba marka hore aan daawano xukunkii dilka kadib muuqaaladan kuu soo wado iyo kuwii Fahad ay soo dusiyeen oo qayb kale ah ayaan ku tusayaa marka hore kan ila daawo maxamed cabdi nuur jiirow hagar Dr. Fanax maxamed dheeraha shantaas aan kugu sheegane shantaas ay dhikaarna waa haystaa haday UNDP ay dhikaara ka haystaa gaashaanlaha militariga waa haystaa wasaaradda caafimaadka dhikaarka waa ka haystaa kii dhakhtarka oo isbitaalka waa ka haystaa ma fahanta soo think marka adi horta goorma iga sikay war aniga ma waxa marka de markaaba dhikaarka aragto inaad iga degto waa ku qasbantahay moogtahay waa 37 jir la bilaabmay soo shaabixii al-shabaab ka madax bannaan awoodihii ka falaagoobay maxkamadihii islaamiga haddana ahaafa Soomaaliya iska tirayso su'aal hal tilaab waa markaa ku dhahay waxaan ka wadaa qofka fadhiyo xabadaas ma ka badbaadi karo kan istaaganne kama badbaadi karo kan jiifane bambadii markay ku dhacdo ruubiya ku dhaca waa istaaga adiga laba joora haddaysan dhimanin meeshaas dhaawac xoog leh ku gaarayo jabhad amniyaad isku roga qaybihiisa sida qaraxyada iyo dilalka gaadmada ayuu ahaa aniga qaraxaas inta aan ku lahaa waxay ahayd inaan istilaaci sameeyo waxay ahayd shaqadii la dhig inaan hubin aan ku sameeyo waxay ahayd inaan hadan istilaac kale ku sameeyo shaqadii la qaban karo shaqadii sida lagu qabto
wixii meesha ka dhacayna dee waa isla wada ogtihiinoo wax hadda bannaanka yaallo ah. waxa uu kala sinaa qof argagixis ah inta uu yahay ama uu soo ahaa, waxaase u dheeraaday diiwaan aan hortiis lagu baraarugsanayn si la isla wada og yahay. waxaan jawaab uga baahannahay sababaha doorashada dhaktarka neerfaha. marka soo think ani waxaanan difaaci karin oo biri ka maalin haddii wax ka yimaadaan maba taabsan kariba, waa kuu sheegiba. haddii hadda ay dhahdo maxaa caddaynaya inaad dhakhtar tahay, sulubaa joogo, durduraa joogo, diburaxmaa joogo, dokumentigaygina waa kanaa. adi marka iga dhexsaa dhakhtar matiis maba lay dhihi karaa mugta. that's why aan u doortay macnaha kulliyaddan. xirfad kaleeto hadda fiiri haddaa idhaahdo ani waxaan ahay dhakhtarka internal medicine ka ah. internal medicine xamar waa la yaqaanaa, konton dhakhtar joogto kala nooc waa la is yaqaanaa. laakiin internal medicine cusubaa imaaday hadduu ka soo baxay waa lagu baaraano. laakiin qofka neurologist waa magaciisa fanax aan lahaa inuu cusub yahay laga yaabaa naga daa ma lagugu sii mashquulayo. 3 milyan baraa ku nool 3 milyan bar 200 qof haddaa ka hesha biilka ilmaha kaaga badan tahay. in qof iska sheegtaa waxa uusan ahayn way sahlan tahay, waase culus tahay haddii la iska rabo la falgelidda beenihii aad soo dhoodhoobtay. waxaa la dhahaa waa central nervous system iyo peripheral nervous system aa la dhahaa. central nervous system waxaa la isku dhahaa waa peripheral central nervous system oo loo soo gaabiyey CNS iyo thalamus nervous system oo loo soo gaabiyey ANS waa intaan. peripheral nervous system waxaa la isku dhahaa wixii madaxa ka dambeeyo. ma fahantay? waa xididadii, waa dareensidayaashii, waa murqihii, intaasaa la isku dhahaa. marka hore waaba ka fakeraba inaan adi ii timaado ani aan kugu qanciyo inaan filligan ani aan difaacan karo anigoon difaacan karin filligan inaan shaata geysto waa ahay maba dhihinba. laakiin waxaasi oo dhan waxaa looga dan leeyahay marin habaabinta hay-adaha amniga iyo u gogol dhigashada sababo uu gabaad kaga heli karo reerkiisa iyo saaxiibadiisa kale. markaan aniga caasimadan soo galay waxaan ahay nin dhakhtaroo isbishaalisto ahoo waddankaas kusoo waxbarto meeshaas ah. qabiilkayga waxaan ka iibiyey inaan dhakhtar ah. ma fahantay? taas xagga dhig. sanadaa joogay kadib waxaa jirtay dowladda in lagu biiro, saraakiisha ku biirta leeli sargaal lagu qaadanayo. haddana filim waxaa keenay ah in dowladda aan ku biiro, darajo fiican dowladda aan ka helay, laakiin caafimaadkaas aan ku shaqeeyo. labadaas ayaan qabiilkii aniga aan ka iibiyey. soo think marka dhakhtarkan wuxuu ii ahaa cover, laakiin shaqadayda saxda oo aniga caasimadda aan ku joogay waa shaqooyinkan qaraxyada. intii uu al-shabaab ahaa waxa uu ka soo shaqeeyey gobollada hiiraan, jubbooyinka, gada iyo magaalada muqdisho. waxa uu soo isticmaalay magacyo u gaar ah iyo kuwo la leeyahay al-shabaab dhexdooda sida maxamed deere, khaalid iyo mustafa caato. mayeera dembiyada argagixisada ee loo haysto waxaase ka xusi karnaa qaraxyo ka dhacay maqaaxiyo danyar ah oo ku yaala agagaarka isgoyska Jubba Juulaay 2 iyo Agoosto 19 2021. waxa uu lahaa agaasinka qaraxyadaas maadaama ay u suura gashay in indhacadeeskiisii midabyada badan uu xitaa dego xeyndaabka sida weyn loo ilaaliyo ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inta aan beledweyn laga soo xirin Maaj 13keedii 2022. waxa uu keenay naftiha ligihii isku tuuray ergadii doorashada reer waqooyiga ee marayay ceelgaabta xamar jajab February 10keedii 2022. waxna ma dhowranay xitaa sharafka ciidan ayuu suuqa ka soo iibsaday haddii ay darajo iyo darees tahay. markii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka isbeddelka hoggaanka ah ku yimid doorashadii 15 May kadib 2022, waxay soo caddaysay hay'adda in Maxamed Cabdi Nuur Jiro uusan ahayn diiwaanadii hore ee faylka u galay. waxaa hoggaanka arrimaha dibadda sirdoonka ay beeniyeen dhammaan waddada shaqo iyo waxbarasho ee looga been sheegtay waddamada Qatar, Kenya, Uganda iyo Talyaaniga. gacantaan dhan ibri ka noqotay. waa joogay ilaa hadda weli waxa ugu xiran faashad. waa joogay Abubakar Allah. shantii kale 3 waa ku dhimatay. 2 mid dhaawac garaabita uu ku noqday. midna asoo dhaawacay oo jinkada ka dhaxbaxay. event loo galay qoryihii telefoonadii laga qaatay, waa laga tagay askartii waa lagu weeyeen. marka anaa gaariga waxaa idin wadadii ay istaagneed ma ahane hore u soo socday meesha qaxootiga dhinaceeda soo istaag. waa lagu weeyeen. markii lagu weeyeen baabuurkii u tageen, baabuurkii soo fuuleen, waxay soo aadeen Madiina xigtay soo aadeen. anaa waxaan rabaa hubkan inaan ma ogtahay gurigii lama keeni karo.
14 Janawari bishan aynu ku jirno ayay maxkamadeyntiisa u soo dhamaatay waxa uu soo maray dhammaan habraacyadii maxkamadeed ee go'aan gaarista maanta ay maxkamadda ciidamada ku xukuntay Maxamed Cabdi Nuur Jiirow dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiintii ku nafwaayay weeraradii uu fulintooda lahaa sida kan Garas Baaley oo ay ku dhinteen Allah u naxariistee Farxaan Cabdi Guure Cali Yuusuf Sheekh Maxamed iyo Maxamed Cabdiraxmaan Cabduqaadir oo afar jir ahaa sida warbaahinta uu sheegay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute 15 bishiina dhaaftay ee September Gaylan Media waxa ay baahisay macluumaadka la xiriira Maxamed Cabdi Nuur Jiirow oo ku magac dheer Dr. Fanax oo ahaa sargaal sare oo ku eedeysan inuu ka tirsan yahay kooxda argagixisada kaasoo laga soo qabtay gobolka Hiiraan kuna jira gacanta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya isbeddelkii ku yimid hoggaanka hay'adda Niisa bishii May ee sanadkan ayaa dhabaha u xaaray in sargaalkan kiiskiisa hoos loo dhigo iyadoo amarka lahaa agaasimaha hay'adda sirdoonka Mahad Maxamed Salaad waxa uu diiday in la horgeeyo hay'adaha garsoorka ee qaabilsan maxkamadaynta dadka lagu eedeynaya ficilada argagixiso gungaarkii rasmiga ahaa ayaa la baabiiyay iyadoo meesha laga saaray muuqaal laga duubay oo uu ku qiranayay dhammaan dhacdooyin argagixiso oo halis ahaa kaasoo la baahin lahaa sidaas waxaan ku sheegnay macluumaadkii hore ee aanu baahinay 15 bishii September Gaylan Media waxay hadda heshay muuqaal qiraaleedkii rasmiga ahaa ee Maxamed Cabdi Nuur Jiirow Dr. Fanax la qariyay lana amray in meesha laga saaro si aan xogtiisa loo ogaanin waxaana muuqaalka ku jira macluumaad xasaasi ah gaar ahaan cadeymaha qirashada dambiye waaweyn iyo sababaha kalifay in kooxdu ay abaabusho weerarada dad muhiim ah lagu dilay sida aan ku sheegnay xogtii aan baahinay bishii hore eedeysana Maxamed Cabdi Nuur waxa uu kooxdan ku biiray xilli hore gungaarkii laga diyaariyay loona gudbiyay hay'adaha garsoorka oo aan helnay waxa uu ku sheegay inuu ku biiray 2017 xilligaas oo ah markii uu ka soo laabtay jaamacad ku taalla dalka dibadiisa oo uu caafimaadka ku soo bartay lana aaminsan yahay inay kooxdu u dirsatay 7 sano ee la soo dhaafay marka aanu raacno qirashadiisa waxa uu ka shaqeeyay qaybaha caafimaadka iyo amniga oo markii dambe loo wareejiyay waxa uu noqday gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir kooxda u qaabilsan ficilada argagixiso si uu qorsheeyo damino lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed Dr. caafimaadka ka soo bartay dalka dibadiisa waxa ay kooxdu ka dhigeen dilaa iyo abaabulo qaraxyo ah oo lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed waxaan kaga beeray deegaanka Saako waxaan qaabilsanaa qaybta caafimaadka wada shaqayn badan kadib waxaan u soo wareegay maktabka amniga waxaa la soo wareejiyay 2 sano ka hor waxaan noqday ku-xigeenka ama naa'ibka Maxamed Cabdullaahi ama ku-xigeenka ninka asagoo Dr. Fanax ayaa qirtay inuu qayb iyo mas'uul ka ahaa dhacdooyin waaweyn oo saameyn ku yeeshay xaaladda amniga ee dalka 22 fal dambiyeed oo dilal iyo qaraxyo ayuu qirtay inuu maskaxdeeda wax ka lahaa ama abaabulayba kuwaasoo lagu dilay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ku jiraan xubno ka tirsanaa golaha shacabka nabadoono saraakiil ciidan iyo shacab Soomaaliyeed 16 bishii Janaayo ee sanadkan afayeenkii ra'iisul wasaaraha xilligaas haddana ah mudane baarlamaan Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa qarax lala beegsaday Dr. Fanax abaabulkan qayb ayuu ka qaadanayay muuqaalka la qariyay ayuuna kaga sheekaynayaa qaraxan iyo doorkiisii waxa kale oo jira qarax sidoo lagu qarxiyay Maxamed Ibraahim Macallimo oo ka dhacay dalka dhinaciisa oo ninka isqarxiyay gaariga daaqadiisa uu ku dhigay intii asina waxa lagu magacaabay xalay lagu magacaabay inta aan ka ogaa qaraxyada ka dhacday intaas ahayd walow ay jireen qaraxyo badan oo markaas ayaan diyaarintooda ay socotay bilowgii bishii Febraayo ee sanadkan Fanax iyo kooxdiisa ayaa wadajir Muqdisho uga abaabulay weerar ismiidaamina oo la beegsaday qaar ka mid ah ergadii gobolada waqooyi ee dooratay mudanayaal ka tirsan golaha shacabka federaalka taas oo ay ku dhinteen dad kala duwan doorka Fanax kaliya ma ahayn inuu wax ka ogaa ee qofka isqarxiyay ayuu qirsan yahay inuu isagu gacanta ku hayay maadaama uu ahaa ku-xigeenka madaxa amniga ee kooxdan
runtii waxaa jira oo kale dhaqaax ka dhacay ceergaabta inuu lagu qarxiyay dadkii ergada ahaa gobollada waqooyi runtii qaraxaas waxaa isku qarxiyay in lagu magacaabo mulla ayaa isku qarxiyay mulla wuxuu ka tirsanaa waxaa haystay in lagu magacaabo hoostagay in lagu magacaabo maxaan ku yidhahdaa garweyne oo markaa haystay amniyaadka markaas ninkan istijaabiyada ku qornaa. dhammaadkii bishii febraayo ee sanadkan fanax waxa uu aad u qorsheeyey qarax weyn oo ka dhacay magaalada beledweyn gaar ahaanna halka lagu magacaabo baar xasan dhiif waxaana noloshooda halkaasi ku waayey in ka badan 15 qof oo isugu jiray qaybaha waxgalka ee bulshada wuxuu markii koobaad sharaxaad ka bixinayaa cidda la beegsanayay ujeeddada loo abaabulay qaraxan iyo sababaha rasmiga ee keenay in kooxdiisu ay aabusho uuna madax ka noqdo abaabulka qaraxan bahalnimo. runtii markaan soo koobo waxyaabo badan waa jiraan kooga markaan soo koobo haddii aan ku bilaabo arrintii ka dhacday beledweyne gaar ahaan xasan dhiif runtii xasan dhiif sababaha macnaha maxaan ku yidhahdaa qaraxaas runtii horta taargetka wuxuu aad u ahaa nin lagu magacaabo xuseen iyo xiire oo ah nabdoon iyo horta taargetka ahaa runtii sababaha loo dilay waxaa kow ka ahaa runtii in looga yeeray shaabkii u yeeray inuu diiday labo inuu saad saameyn ugu lahaa dadkii macnaha isu soo dhaweeyey maxaa ku yidhahdaa madaxweynaha hirshabelle puntland iyo qabaa'ilka xawaale taasaa sababta marka in ninkaas sida qaraxaas loo soo ababulo. bil kadib dhacdadii baar xasan dhiif ee lagu gumaaday shacbi soomaaliyeed maaraj 2022 xilli beledweyne ay ka socdeen loolanka doorashada kulaasta golaha shacabka ee deegaan doorashada u taalay gobolka hiiraan maxamed cabdinuur fanax iyo kooxdiisa ayaa abaabulay weeraro argagixiso oo lagu qaado xarunta lamagalaay ee beledweyn halkaa oo ahayd madaxtooyada hirshabelle ayna ka socdeen howlaha doorashada xildhibaanada golaha shacabka doktoorkii caafimaadka bartay ee isku beddelay dilaaga sida uu ku eedaysan yahay ee fanax waxa uu sabab la yaab leh ku sifeeyey markii koowaad waxaa keenay inay gaar u beegsadaan ama u dilaan allaha u raxmadee xildhibaanad aamine maxamed cabdi oo ka tirsanayd golaha shacabka federaalka taasoo ku geeriyootay bilowgii weerarkii argagixiso ee kooxdan ay ku qaaday xerada lamagalaay markii uu qof isku qarxiyey. intaa kadib runtii waxaa bilowday abaabul lagu abaabulayo in lagu qaarijiyo xildhibaan aamin maxamed cabdi runtii aamino dadka shaqada fulinayay wuxuu ahaa nin lagu magacaabo cabdishakuur wuxuuna ahaa ninka ku xigo amniyaadka gobolka ayuu ahaa waxaa ka sarreeyay nin lagu magacaabo cabdullaahi dheere runtii waxaan ku kulannay cabdishakuur raxsin xaaji qorow gurigiisa gadaashiisa waxaan aad uga wada hadalnay arrinta lamagalaay qadiyadda lamagalaay runtii waxaan isla garanay arrintaa in si hufan loo galo waxyaabaha uu ii sheegay waxaa ka mid ah in aamino xildhibaan aamino uu ii sheegay in uu yidhi waxaa jira heshiis aan hore wada gaarnay heshiiskaas ayay nooga baxday marka taasaa sababta inaan qaarijino runtii waxaa bilowday marka qaabkii loo fulin lahaa qaarijinteeda runtii ninka horta gudaha galo isqaaxiyay xildhibaan isku qaaxiyay wuxuu ahaa gaarjecel waxaa lagu magacaabay cabdullaahi ayaa lagu magacaabay waa ninka isku qariyay xildhibaanada dile. kadib dhacdada lamagalaay kooxda argagixiso waxa ay qorshaysay qaadidda weerar kale oo lagu dilo inta badan siyaasiyiinta gobolka hiiraan ee raadinayay kuraasta baarlamaanka gaar ahaanna musharaxiintii mucaarasanaa madaxweynihii markaasi xukunka joogay si ay u abuuraan kala shakiyo iyo isku dhacyo siyaasadeed ugana raadiyaan fursad ay dhinacyada siyaasaddu isugu eedeeyaan ficiladooda argagixiso taasoo uga hirgashay gudaha dowladda federaalka iyo musharaxiintii loolamaysay oo qaarkood dhacdooyinkan ku sifeeyey kuwa aysan kooxdaasi gaar u fulin. kadib waxaa bilowday qorsho ama olole lagu taageersanayo xildhibaanada qaar oo ay ka mid yihiin gabar lagu magacaabo muna axla oo ah xildhibaan markaas raadinaysay kursiga xildhibaannimo kursigaas ayayna markaas xildhibaan laakiin kursiga ayay raadinaysay waxaa kale oo jira nin lagu magacaabo cabdirasaaq oo soo noqday wasiirka amniga dowladda xilligii xasan sheekh oo isagana maxaan ku yidhahdaa xawaalo ah runtii horeegaas ah runtii waxaa kaleetoo jiray nin isigana lagu magacaabo cabdullaahi wadax bare dadka taargetka ah oo ka mid ahaa waxaa kaleetoo jiray xildhibaan qoone markaan weydiiyey cabdishakuur sababaha loo qaarijinayay ma uusan ii sheegin sida uu iigu sheegay xildhibaan aamino. muuqaalka qarsoodiga ah ay heshay geelan midiya waxa uu ku sharaxayaa doctor fanax qaraxyadii beledweyne doorkiisu waxa uu ahaa gaar ahaanna kii lagu dilay xildhibaanad aamina iyo kii baar xasan dhiif oo ay ku jiraan beegsiga haldoorka bulshada gobolka hiiraan. aniga doorka aan ku lahaa waxay ahayd fududeyn ama dadka shaqada qaban lahaa inaan gudaha lamagalaay aan geliyo maadaama kow aan qabiilka magaalada u dhashay
maadaama laboodan aan ahay qabaa'ilka magaalada saameynta ku leh inaan dadka gudaha geliyo waxyaabaha cabshikura ka wada hadal waxaa ahay waxay ahayd inaan dhaafiyo keliya wejiga koowaad si ayagana ay markaa ay u qabsadaan waa jirtay intaan kadib waxaa jirtay marka cabdishakuur isa soo aragnay waa soo ballanay shaqada qaabka loo qaban lahaa kadib waxaa gacantii ugu dhigay hay'adda nabadsugyada sirdoonka kii xasan dhiif runtii xasan dhiif horta waxaa iska lahaa nabadoonka la dilaya nimanka iska lahaa runtii sababaha loo qarxinaya keliya waxay ahayd ninkan nabadoonka xuseen ciile ayuu horta taargetka ahaa kow waxay ahayd in shabaabka ay u yeeleen ay ku yidhaahdeen arrinta ergada iyo arrinta isu soo dhaweynta madaxweynaha stateka iyo madaxweynaha federaalka arrintaa faraha ka qaad labo in uu diiday iyo u yeelid ay u yeeleen sababta keenta marka taasaa keentay in la qaarijiyo intaa kadib marka doorkaan aan ku lahaa runtii maadaama ninka nabadoonka oo aan qaraabo ahaa ama nabadoonkayga u ahaa waxaa jirto mar aan la xiriiro aan u sheego aan ku yiri waxaa jirto xog noocaas laakiin xogta si kalena uma aanan sheegin waxaan ku yiri waxaa jirta xog sheegaysa in xasan dhiif qarax waxyaaba ay kusoo wajahan yihiin marka waxaan ku yiri adeer arrinta inta doorashadan iyo kambeynka u socdo macnaha meesha ha tegin mar kale jirta dan sidaasoo kale u sheegay maalinka u sheegay maalinka laad maalin wuxuu qarax ayaan ahay sidaas ayuu ku dhasay ugu dambayn hadda doctor maxamed cabdinuur fanax waxa uu ku jiraa mid ka mid a xabsiyada ay maamusho hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya galdacwadeedkiisa ayaana hoos loo dhigay iyada oo la diiday in la horgeeyo hay-adaha garsoorka oo kiiskiisa gacanta ku hayay dhammaan muuqaaladii gungaare ee ka duubtay warbaahinta dowladda ayaa meesha laga saaray oo la tirtiray ila wareedyo dhinaca hay-adaha amniga ah ayaa hadda qiraya in fanax la doonayo in loo adeegsado dana siyaasadeed iyo gungaar cusub oo laga sameeyo balse madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisa waxaa hor yaalla sida loo maamulo dhammaan kiisaska halista badan ee hadda gacanta ugu jira hay-adda nisa ma og tahay applicationka baysi inuu kuu fududaynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta baysi waxaa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Ameerika haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store